بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. halkan caawa waxay isugu yimid haweenweynaha iyo hablaha gaaroodi ee reer London ayagoo ka xun buugii uu qoray wasiirka wacyigelinta iyo warfaafintii wacyigelinta ee Somaliland. Fariintan waxay ku socotaa madaxweynaha. Buugaas oo lagu caayay haweenweynaha Soomaaliyeed oo dhan. marka madaxweynaha dacwadayadii inay gaadhay ayaana soo gaadhay. madaxweynaha ayaan fariintan u diraynaa inuu buugaas sida ugu dhaqsaha badan la tirtiro oo buugaas la dabar jaro oo la gubo ayuunba annaga qancisa. xaal kale ugama baahnin, wax kale ugama baahnin. buugoo la tirtiro oo la dabar gooyo oo dib caalamka loogu arag. haweenka Soomaaliyeed waa midhihii dadkoo dhan ay gurtaan ma kala laha qabiil. markaa qabiil gaarana uu ku sii qaatay. madaxweynaha waanu ka sugaynaa fariintii loo soo gudbiyay iyo dacwadayadii loo soo gudbiyay ee baarlamaanka u gudbiyay ayaanu ka sugaynaa. halkana waxaan mahadcelin uga diraynaa xildhibaanadii ka geystay garyaqaanka ah, xildhibaan Nacnac, xildhibaan Riyo ay ka mid yihiin, iyo xildhibaan maxamed baashi gudoomiyaha baarlamaanka. aad iyo aad baan idin salaamayaa. madaxweyne Somaliland mudane Muuse Biixi, aad iyo aad ayaan uga xunnahay arintayada inay raagto. aad baan uga xunnahay. ilaa hadda go'aan laga gaadhaan ka filaynay, laakiin maantana waa fariintii ugu dambeysay oo culus oo hablihii UK ee gaaroodi iyo ciidagale especially ayaa meesha isugu yimid iyagoo kulligood aad iyo aad cadho uga muuqato wajigooda buugii oo ilaa waqtigaas soo gaadhay muddana socday imika. wassalaamu calaykum. magacaygu waa Sahar Cumar Cabdi, gudoomiyaha hablaha gaaroodi. waxaan ku wareejinayaa gudoomiye ku-xigeenka. magacaygu waa Leyla Suldaan Cabdulqaadir, waxaan ahay gudoomiye ku-xigeenka hablaha gaaroodi. hadalkii waxaa dhammaysay gudoomiyaha hablaha gaaroodi Sahar Cumar. waxaanu halkan baaq weyn uga diraynaa madaxweynahayaga Muuse Biixi Cabdi inuu arrinkaa buugaa hablaha lagu ceebeeyey. hablaha annagoo kaliyana lama ceebayna, hablahoo dhan baa la ceebeeyey. madaxweynaha hooyadii baa la ceebeeyey. cid walba yacni hablaha Somaliland oo dhan bay khusaysaa. marka madaxweynaha waxaanu ka codsanaynaa inuu buugaa tirtiro, buugaa la waayo, meel kasta laga soo ururiyo, la qariyo. dhammaan raggii iyo madaxdii iyo dadkii ka dhiidhiyey ee ka hadlayna waxaanu halkan uga soo jeedinaynaa mahad aad iyo aad u faraweyn. salaamu calaykum. waxaan imkana ku wareejinayaa Aasiya. raxmaani raxiim. gudoomiye ku-xigeenka iyo dhammaan hablaha gaaroodi ee halkan iskugu yimiday iyo dhammaan inta maqanba waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. hadalka murtidiisii waxaa dhameeyey gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka, laakiin mid la soo koobi kara maaha. waxa weeyaan guri barwaaqo waa qof, waa shakhsi, waa khaldami karaa, buugna wuu qori karaa. laakiin waxaanu annagu haddaanu nahay hablaha gaaroodi iyo hablaha ciidagale iyo hablaha Soomaaliyeedba iyo hablaha garxajisba waxaananu dul qaadan karaynin oo aanu ka dul qaadan kari weynay in la isku kaayo daawado oo la dhegaysto oo lagu raaxaysto qoraalka uu qoray. taasaanu qaadan kari weynay. marka waxa weeyaan waxaan kale oo aan halkan aan ka taageerayaa waxa weeye oon ka taageeraynaa dhammaantayaba go-aanka baarlamaanku qaatay ee uu dacwadda ku gudbiyey uu xafiiska madaxweynaha u geeyey. waxaanu sugaynay khamiistii ugu horreysay ee kulanka wasiirada in arrintaasi dhammaato, caawana ay noo noqoto in aanu dadkiina garab istaagay aan u mahadnaqdo. waxaa nasiib darro ah oo aananu qaadan karaynin oo aanu madaxweynahayagii la doortay aanu gaadhsiinaynaa in aanu nahay
very disappointing haddaanu nahay hablaha gaaroodi oo aanu arrintaa ka xunnahay inay soo jiidanto oy maanta soo gaadho oy fadeexaddu sidaa u socoto hadday sii socotona way ka sii xumaan doontaa gacantana way ka baxaysaa marka codsi baan u gudbinayaa baresidaanka waxaan leeyahay xafiiskaagay taallaa inta miisaaniyadda laga dooday in haddana fasax la galo aad baan uga xunnahay caawa waxaanu rajaynaynaa inay sida ugu dhaqsaha badan ay soo gabagabowdo waxaan ku wareejinayaa walaashay Faaduma Buraale aad baan u salaamayaa hablahan sharafta badan ee halkan isugu yimi waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hablihii iga horreeyay baa hadalkii dhameeyey in yarun baan ku darayaa anigu horta buugga qoritaankiisa buugga ninka markii aan maqlay buugga warkiisa yaabay ugu noqoto waxaan idhi naama wixii dumarka Soomaalida lagu yiro dhan baa buugga lagu soo ururiyay markaas leemaynagunba meesha laynagu qoray waxaan la yaabo fajicisay igu noqotay nin weyn oo waliba dadka wax qorayo kale waa mutacallin oo waxbu qoraa intuu seexday uu soo toosuu fikiray inuu hablo waliba dhalay oo la dhashay inuu magacoodii haybtoodii iyo ay magacoodii iyo qoladoodii ku tafadirantay inuu beej ku qoro buu ku qoro waxa ilaa iga degi weyd ilaa hadda riyo haysta anigu horta runtii waana waxaan la yaabay runtiina waxa kaloon la sii yaabay buugga ninku makaligii buu qoray editing gareeyay soo saaray buugga meen cid la arag maxaa loo qaban waayay xataa waxaan la sii yaabo kale jaamacadda Hargeysa lagu yiri 5 kun oo qof baa dhigtay uu ku faaniyo ku soo bandhigay miyaanay jaamacadda iyo xataa meelaheena dadku wax bartay ka soo baxaan iyo meelaha inoo maxay ahayd wax lagu bartaaba ceeb ku tahay inuu qofna ka jawaabi waayo ka qaban waayo qaladka inta leeg anyway taasu way dhacday marka meel walba way ka dhacday waxa ugu weyn anagoo la yaqaan oo hadii waxna laga qorayo anagoon hablaha Soomaaliland caayeen hablaha reer Sheekh Isxaaqna caayeen hadii cid wax laga qorayo anagu hablaha lambar 1 taariikhda ku haystaan inaanu nahay waananu nahay anigu ma haysto way siday tahay anaku waa la iskaranaya Google baynu ku wada fadhina waynu isnaqaana hadii waxna laga qorayo hablihii ragga lagu xujeyn jiray hablihii raggayn laba qabiil isku diri jirtay ana guursanaya hablihii saddex reer ka yareed bixin jireen baa anaga inaga dhasheen cid ay ka dhasheen oo kale ma jirto waxa kale hablihii xaynkooda la qabsan jiray ee la oran jiray reero inta xaynka heblaaya qabsatay ayaa ka soo haraysa anaga inaga dhasheen hablihii oran jiray arooriyo horaada eedaanka inay wax gali arbaabinaqoodu oodaaba inuu la tagi nuur leeyahay aad baan u garanaya maanta hadaanan oran waayay waa nasiib darro inaanan oranayn in buugga la eedayaa aad baan u garanaya hadaanan oranayn marka runtii anigu madaxweynaha fariin u diri maayo waxaanan ugu dirayn isaga caayan ayda ugu weyn buu ku leeyahay madaxweynuhu hooyadii ninka la caayay habriyadii la caayay de garan maayo waxaan ku dhaanu ku jawaab isagay u taala laakiin waxaan u sheeganay inaanu soo eegano oo indhahayagu meel kale imaka aanay haysanin oonu waxa ka soo baxa eegayno Muuse iyo warqadda cayda agtiisa taala buugga cayda ah warqadii lagu soo baarlamaankii soo baaskareeyay eegan kari waayeen raaj waan ugu mahadnaqaya baarlamaanka Somaliland ee gudoomiyaha ee xildhibaan Nacnacow ka yahay ee laba cishana haysan waayay soo dhaafiyay ee lambar 1 ka dhigtay aad baan ugu mahadnaqaya nin kaste oo nagadii oo ka diiray ceebtaas waa nin gurigooday taalnin walba anaga ka xataan qoray ee aanu dhalay ee nala dhashay ee waxaas te ma garanay anigu sidoo ay ka ahayd marka runtii arintaasi waxaanu doonaynaa anagu haday ay u haysataan inay tahay soora yar oo ka Soomaalida laynagu yaqaanaay oo cisho iyo lama qaylqayli doontoon hadhay waanu wadaynaa balan London waanu uga soo dhoofana ku Hargeysa haday xataa aanu nidhaahno sidaanu doonanay u xidhan weyn annaga soo dhoofano tigidha soo goosanin oo lalaha waanu wadaynaa mana yeelayna buuggaas inuu sii jiro waxa de ninka sii jiri doonayaana waxaanu arkaaba nin ay ku raaxaysanaya iyo xumaan inuu yahay oo waxba ka siqsiqay marka buugga waynu wada aragnaa foolxumadiisana waa la wada arkaa
ciyaarta inoo soo gaabiya qayle iyo murayo intaa inagaga badanin buuggaa sida ku dhaqsaa badan leh ha loo baabi'iyo xilkana ha laga qaado uma qalmo inuu noqdo wasiir annagu wasaaraddaasuna nooma tirsan intuu guri barwaaqa joogo maxay tidhi waxa kaloo sheegaya hablaha ciidagale iyo hablaha garxajis iyo kuwa reer Sheekh Saxaaq inta naga raacsanay damiir leh garanaysa waxa suceebtan wuxuu tahay iyo kuwa Soomaaliland iyo kuwa Soomaaliyeedba way arkaan maanta fadeexadan iyo foolxumadan meesha ka dhacday kulligeeyo waanu ka midaysantii damiir leh intii nala dhalatay noo damqanaysaaba hablaha waana nuu mahad hablaha habaryoonisa waa dhiigayagii weel kastaba way ka damqadeen ma hadnaq bay nagu leeyeen meel kasta ay joogaan hablaha iskaayo garab taagayeen maadirada iyo damqadayna aad baan ugu mahadnaqaya hablaha habaryoonis aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya meel kasta ay joogaan arintana hablaha garxajisoo dham way ka simayeen ololahana waa la wadaya waxa kale oo sheegaya adduunyada waan daawanay habeen walba waxaan jiray warka koobaad iyo ku dhaafin waxaan ka eegayay qabiiladan oo ila dhalatay oo ila dhiigaho ila degan oo waxaan igu samaysay oo ninkan uu ka soo jeedo waan isnaqaano reer baynu xisaabtanaay oo qof ka jawaab la waayay oo malaal ugu raaxaysanayo xumaanta meesha ka dhacday nin baa ka jawaabay hanin ninkii anigu ninka jawaabay maan aragay nin waxaan arkay hadlay oo reerkaasan maanta arkay intaan guriga ka soo bixin ninkaasu wuxuu ahaa nin waxaan u difaacay ninka waxaan sameeyay wuxuu ahaa qof saboorsan waxaan dhacay wuxuu ahaa uu aflagaadeeyay raggii ka damqaday damiirka lahaa ee buugan xumaantiisa sheegay aad iyo aad iyaan ugu xumay nin dhan oo guurtida Soomaaliland uu ku jira waliba ninkaasu teetalkaasu haystay haddana wuxuu ku hadlayay waxay ahaayeen wax garabeeshin oo ku taageersan ninkan xumaantan uu sameeyo waxba ba warkayno saaraye baalka saarayo qarinayay buha marka runtii anigu aad iyo aad baan arintaasi uga xunahay aniga iyo dhammaan hablaha iyaga oo dhan hablaha gaaroodi hablaha ciidagala weyne hablaha garxajis iyo intii kale damirle ka damqanaysaba waan maxay hayde waan ogay inay ka xun yihiin marka waxaanu ka filaynaa aanu rabnaa aanu doonaynaa waxa weeyaan in buugaa la gubo dhaqso loo gubo hawshana waanu wadanaa hadda doonaysa sarariyada suuqyadana ha sii socoto hadii kala barakaatu dhammaan waxaan salaamayaa inta shirkan ka soo qayb gashay iyo intii soo gaari weydayba iyo inta Hargeysa joogtaba aad iyo aad waxaan uga xunnahay fariinta iyaduna ay ku socotaa Muuse Biixi oo madaxdayadii Allah sharfo waxaan u sheegaynaa buuga meeshana lagaga dhacay ee lagu ceebeeyay gabayo adduunka way ka bateen Soomaaliduna way wada gabi jirtay wuxuu tusaale ugu soo qaatay cayda hablaha yaga isaga ka jawaabi doona inta gabay kala batay inta ragabiyay tusaalooyin gabayo badan oo loo qaadan karaaba way jiraan laakiin cay hablood ayaa tusaalo waliba qabiilkoodiina lagu sheegay ayaa tusaale laga dhiganaya sidoo yiri waan ka dhiganay nimidna maraysa maaha ummaduna waxay ka yeelaysa maaha annaguna waxaanu ka yeelayna maaha buugaa sida ugu dhaqsaha badan Muuse Biixi waxaanu ka doonaynaa in loo tirtiro oo loo gubo meel uu joogaba oo la dabar jaro ayaanu Muuse Biixi marti uganay degdegna noogu jawaabo iyadoo imanka waqti qaadatay aanan filaynin inta in laga aamuso ma garanayno raggiina iskaayo garab taagay ee lahaa Maxamed iyo gudoomiyaha baarlamaanka lahaa ee nacnac lahaa ee riyaal ahaana waxaanu idin leenahay nin libaaxnin ganayna og nin galladayna og waanu idin ognay aadna waa u mahadsantiin waana tu idin taalo idinba caariyo hablaaleedi aad baan uga xunnahay waxa kale oo halkan mahad uga jeedinayaa hablaha garxajis ee iyaguna habaryoonis ee nagu garab galay ee nagu raacay ee isku aragti aanu noqonay annagoo ka filayna ninka buugan qoray reerahooduna inay sidaas oo kale noo garab siiyaan ayaanu ka filanaynay oo waayo isku dumar uun baanu nahay inaanu si uga wada damqanaanu ka filanaynay laakiin waa mid iyagu ay yeeli waayeenoo mid iyaga ka maqan un weeye laakiin annaga aad iyo aad baanu uga xunnahay iyagana waanu ku ognahay inaan rag iyo dumar toonna qof yidhi waxaan ka bixinayaa raaligelin aanay lahayn oo kamaanaan filayn waa dad meel la wada deganyay waa dad la isu wada yaqaano dee waa wax idiin yaalla
idinkana muuse biixina waxaanu leenahay inan baa ku dhashaye hooyadaabaa haawatooyinka iyo hungurigaba ku jirta hilibka ku haliilaye inaad wax ka qabata adiguna ayaanu habar yar marti kaaganay taasaanu habar marti kaaganay haddii aan xadka ka baxayna laga raalli noqdo anigoo axaan cumar ibraahim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo magacaygu yahay deeqa bootaan waxaan ku hadlayaa magaca hablaha garxajis waxaan fariin halkan uga dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi anigoo ka cabanaya ninka wasiirka ka dhigtay warfaafinta iyo dhaqanka oo uu nagu caayay buugaag nagu qoray haddaanu nahay hablaha ciidagale waxaanu u faraynaa madaxweynaha in buugga tallaabo sharciya laga qaado oo la gubo isagana maxkamadna loo soo taago muddo badan ayay sheekadani socotay buugga wuxuu yidhi wasiirku dee ma garanay cid u qortaye malaha isagaa qoray haddana wuu rumayey wuxuu yidhi 2002 alifkii ayaan soo saaray haddana 2018kii ayuu soo baxay buuggu wuxuu u jeedaa madaxweynaha hooyadii oo uu caayayaa yaa nagaba marka waxaan u sheegayaa muuse biixi inuu adiga kuu jeedo kuguna kicinayo hablaha reer somalilan oo dhan especially hablahaad habaryarta ku ah ee ku dhalay wuxuu kugu kicinayaa dadka si ay adiga kugu soo jeestaan waanay kugu soo jeesteen haddaad tallaabo ka qaban weydana annagu haddaanu nahay hablaha garxajis ama hablaha ciidagale inaananu sheekadan ka hadhayn oonanu god la geli doono ninkaa haddii wax laga qaban waayo bugaagtaa la gubi waayo oo laga tirtiri waayo somalilan iyo soomaaliyaba in gacanta la iskula tegi doono oy sheekadu gacan isku rogi doonto oo maantay fududdahay muuse biixi waanu ku sugaynaa waxa ku soo eegayaana waa hablaha ciidagale waxaan la yaabay midh oo ah ninkan la leeyahay waa wasiirka warfaafinta miyaanu reer ka dhalan sacad muuse waa reer ballaadhan oo culimo leh oo suldaan leh oo siyaasiyiin leh oo dad cilmi leh midna kama hadlin qof ka hadlay oo sheekadan ka dhiidhiyey ma jiraan haddii ay cay noqotana gabay cid ciidagale ka badiya ma jirto hore waa la isugu gabiyey hadduu gabay ka buuxinayo buugga hablahoodaba waa loo gabiyey aniga waxa weeye wasiirka warfaafintu qabiilku ka soo jeedo waa reerayeyday soomaad garan marka haddii uu sacad muuse ka hadli waayey waxaanu fariintayadii u gudbinaynaa madaxweynaha mar labaad mar saddexaad iyo mar afraad waanaanu ku eegaynaa waanaanu ku sugaynaa waxa weeyaan sheekadu intaa ku dhammaan mayso way soconaysaa waanaanu la godgelaynaa ilaa intaa buugga la tirtirayo oo la gubayo oo maxkamadna loo soo taagayo wasiirka warfaafinta waraxmatullaahi wabarakaatuhu maanta halkan waxaan iskugu nimid anagoo beelweynta ciidagala ah inaanu baaq u dirno oon ku xoojinano baaqii hablihii hore runtii ninka la yidhaaho guri barwaaqo buugu qoray sida khaldan magaalada loogu faafiyey buuggaasoo runtii ay inantii hablihii iga horreeyey dadkii naga horreeyey bay yidhaaheen waqtiga uu qorayo timeka uu soo baxay way kala fogtayeen malaha dadkiina waxba ma akhriyaan baan halkaa ka aragnaa anigu baaqayga wuxuu yahay inaan haddaanu nahay hablaha beesha aanu mar walba aanu ilaa inta ka u yar iyo ka u weyn inaanu marna aanu ka hadhahayn arrinkaa uu guri barwaaqo adusley gogol fiican baad maanta ku hurudaa uma malayno gogol fiican maanta ku hurda intaas kugu filane laakiin haddaad adigu iscasili weyde haddaad adigu soo bixi weyde hadduu madaxweyne waxba kaa qaban waaye haddii faamiliga beelweynta aad ka soo jeedaa hadalkan ay ka dhiiri waayeen ay ka hadli waayeen ya waa laga hadlaya waan la wadayaa ilaa iyo intaad buugga dibadda lasoo dhigayo lagana tirtirayo meelihii aad geysay lana soo wada xareynayo beeshana go-aan waxay ku gaadhay yar iyo weyn inay maanta ay daba socoto buuggaas waxba maaha kolba inaad noo weydaarto ragga yaga
suldaankayaga ood been ula tegtid waxaas waxba kuuma tarayaan guri barwaaqo guri bilayaan aan u arka inuu yahay guri barwaaqo anu waxaan ku oran lahaa baaqaa London maanta caawa xilliga hablaha waxa soo wada jeeday waa caro guri waxaan ka codsanayaa sida ugu quruxda badan waxba ha noo wadaan ragayaga hablahani waa lagu ceebeeyay wad ceebeysantay adaa is ceebeeyay adaa waxaan qoray waxaan u baahanahay inaad adigu inta apologize bixisid inaad soo agfirsid hablaha inta u yeedhid aad tiraahdi waan khaldamay bil'aadmi baan khaldamin oo khaladkaaga garatid laakiin aad noo weydaartid ragayaga iyo suldaamiintayada oo tiraahdi buug beenaa u dhiibtid taan aad baan uga xunnahay marka aan guri barwaaqo kale kugu filan hadal intii hore hablaha hore ku yiraaheen oo hadal dambe ku oran maaye laakiin waa lagu daba socdaa ugu ilaa intaad iska xoreynaysid wasaaraddan lagu dhiibayna uma qalantid cidna wacyi gelin kari maysid cidna maxaan ku raahay ku dhageysamayso kii kugu xigay ka hoosay adiga ayaa adigu halka wasiira aad maanta kelmad sidoo hadleed arkaysi cid kugu sharfi mayso anigu sharafta adoonaysid waxaan ku oran lahaa hadda iscasil oo iska wareej xilkan uma qalantid nin xilka u qalmayna ma tihid marka iscasil baan ku oran lahaa dhammaan hablaha iyo maxaan ku raahay reer Soomaaliland oo wada salaamaya si gaarana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi waxba hadalkiisa loogu tagaaye waxba ninka hooyada maanta wax ka sheegay waxba hays oranin talomeed ka eridaaye waxba haysay eegna ninkan cid Soomaaliland meel buu kaga dhacay hablahana meel buu kaga dhacay hablaha Soomaaliyeedna meel buu kaga dhacay maaha beesha aanu ka soo jeedno kaliya waa hablaha Soomaaliyeed oo dhan habluhu cay ma laha kuwada ahaadaan kuweena ahaadaan habla inan cay ma laha waxa weeye waxa Muuse marka aad Muuse Bixi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan oran lahaa waxba hayseen buugaha waxba ha eegine runta ka sheeg hadalka oo ninka soo fariisi aad baan dhamaantiin wada salaamay soo dhantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh assalaamu calaykum hadal horta waa la dhameeyay hablii hore dhameeyay hadal ma aha anahan hadlo u noqon mayso laakiin hablii hore iga horeeya hadalkii oo dhan wada yiri halkan wuxuu baan ka diraynaa haddaanay hablaha beelweynta cidagale iyo magaca garxajis meel kasta aanu joogno annagoo taageerayna hablaha hore ee hadlay ee wadankii jooga ayay xildhibaanadayadii noo dadaalay intaba hambalyo u dirayna baaqoodiina mar labaad daba soconna waxaan doonaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland in uu baaqaas hablaha uu tixgeliyo oo uu si hagar la'aan oo hufan uu ka soo jawaabo haweenku waa midho waa wada hooyo ilaa daaf Soomaali baad sheegtay magaca islaamka oo dhan haweenku waxay mudan yihiin haybad gooniya haweeninka wax ka sheega isagaan qiimo lahayn isagaa dad ugu liita laakiin aad iyo aad waxaan ugu xumahay ninka maanta buuga qoray hooyaa dhashay inan buu dhalay inan buu la dhashay oori Soomaaliyeed oo haweenana wuu qabaa oo hoy buu ugu hoydaa tii uu hoyga ugu hoyanayay kam mid bay tahay haweenka la caayay inantiisu ka mid bay tahay walaashii ka mid bay tahay habareertii ka mid bay tahay intaaba ninka tixgelin waayay cid kale tixgelin maaye haweenow yaynaan kaa ku daalin hadal yaynaan kaa ku sarbeebine kaasi waa guri biis waa magac biis inaan ragna wuu biyey kaa hayno meel ku ilowno xabaal mooyaane isagana gabadh kasta oo Soomaaliyeed ag maraysa laba dhirbaaxayna ka jirta weeyaan markay ag dhaaftaba midda kale waxaaba ayaan dara ah dawladii dhameeyda Soomaaliland ayaa qof siirooya oo aan digri lahayn oo cilmi lahayn hadduu cilmi leeyahay waxaan muu qoreene ayaabay tiri wasiirkii waxaad noqotaa warfaafinta iyo wacyigelinta muxuu wacyigelin isagii baa u baahan wax wacyigeliya oo wuxuu sheega kaasi wasiir ma noqonayo madaxweyne yaanu dunida kugu ceebayn malaa digrigu sitaana waa digrigii bilaash ahay la soo qaadan jiray buugaagtu qorayna duwanuhu dib ha u eegaan ha loo eego see maantuu haween gacanta u galayo dib u noolaan maayo wuu naasnaasin bilaash haytuu noqon Yurub iyo Kanada intuu ka ceeshi jireen dib uga ceeshi maayo haday dawladda Soomaaliland wax ka qaban weydo adduweynahaanu ka dacweyn oo buugaagtiisa wada dhigi doona salaam calaykum anigoo ku hadlaaya magaca hablaha ciidagale ee ururka gaaroodi waxaan halkan dhawaaq dheer uga dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dhawaaqa aan dheereen madaxweynaha gaarsiinayo
ayaa wuxuu ka daba tegayaa dhawaaqii hablihii Hargeysa ee muddada dheer ka soo shaqaynayay dhowrka wiiga buuggii uu qoray wasiirka warfaafinta wacdigelinta iyo hidaha Jamhuuriyadda Somaliland buuggaas oo uu ku qoray beelweynta hablaha ciidagale on total ceeb lahayn wax khaladana aan lahayn ay ahna run ahaan hablaha ugu qaalisan anigu sidaan aaminsanahay ay yihiinna Jamhuuriyadda Somaliland hormoodka lagu daydo hablaha Jamhuuriyadda Somaliland waxaan leeyahay madaxweyne uu ku soo gaaray baaqayagii muddo 4 cisho ka hor baarlamaanka ku soo gudbiyay maaha baaqayaga lagu soo diray inaad is ag dhigto oo nad wax ka qabanin waxa aan mar labaad ku sheegayaa madaxweyne in aad tixgeliso baaqa uu ku soo gudbiyay baarlamaanka Jamhuuriyadda Somaliland aadna waxaan ugu mahadnaqayaa marka ugu horeysa in adeerkay Maxamed Bedel oo ah abwaan aad iyo aad noogu qaaliya ayaan halkan ka salaamayaa Maxamed Bedel waxaan leeyahay cimrigaa ha jiro cadowgaana ha jabo guuleysana leeyahay meel kasta joogta geesigii noo soo kacayo nimanka kale ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Somaliland oo ka mid yahay xildhibaan Nacnac iyo xildhibaan Indo aad iyo aad baan iyagana u salaamayaa guuleystaan idin leeyahay riyo raali halayga ahaado magacayga khaldamay halmaami hadalku ma jirto madaxweynahana mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay buugga annagu xaal ma rabno xoolana ma rabno wax allaaliyo waxaanu rabniyo kolba nin intuu mikrofon soo qabsado hadalkayagu dheeldheel ku yahay oonu ka gubanahayn oo ka caddahay inaanu yani cayda iyo xumahaas aanu hablahooda ku socono annaga nagu socdo ma u dul qaadan doono oo si kaftana mikrofoonada u soo qabsada oo yiraahdo hablahan waxa baa la siiyay waa la raali galiyay annagu raali ma rabno mana ku qanci doono waxaanu rabnaa in buugga hortayada lagu gubo hortayada in lagu gubo oo laga saaro ta kale waxaan ka codsanayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ninka uu ka dhigtay wasiirka warfaafinta iyo wacdigelinta ma noqon karo wasiir haddaanu nahay hablaha beelweynta ciidagale waxa aanu isku raacsanahay mid iyo mid weyn in ninka xilka laga qaado buuggaana horteeda lagu dilo wabillahi tawfiiq assalamu alaykum haddaanu nahay hablaha gaaroodi waxa aanu jecelahay wada jirka iyo wanaagga iyo samaha Somaliland waxaanu jecelahay wanaagga inuu dadka muwaadiniinta Somaliland wanaagooda iyo wada jirkooda ayaanu jecelahay sababta li ajligeed wax walba oo khilaaf iyo dhibaato iyo tafaraaruq keenaya ayaanu ka soo horjeednaa sababta li ajligeed waxaanu idinka codsanaynaa hadda tihiin madaxdayada sharafta leh oo ugu horeeyo madaxweynaheena sharafta leh iyo golaha baarlamaanka iyo mas'uuliyiinta Somaliland dhammaan buugga anshax xumada iyo dhibaatada iyo aflagaadada hablaha Somaliland lagu qoray waxaanu idinka codsanaynaa si sharaf iyo xishmad ay ku dheehan tahay in aan buugga ciribtirtaan oo tirtirtaan oo gubtaan oo markaasi ay taasi ay noqoto wax lagaga waantoobo buugaag dambe oo aan raqaabad soo marin buugaagta dambe ee la qorayana inay noqdaan buugaag lajnad raqaabada loo sameeyo oo la ogaado buug walbo la qorayo nuxurkiisa iyo maadada ku jirta buugga laga dhigay academic book oo ardayda wax lagu barayo librariyada yaala waxa weeyaan buug anshax xumo ka buuxa oo dhibaato iyo tafaraaruqna wadanka iyo dadka iyo dalka dhex dhigaya marka waxaan idinka codsanaynaa ina buuggaasi wax weyn ka qabataan